jumciyadda ay ku mudoobeen culimada waqooyiga Ameerika ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaanayana ayaa shirweynihii culimada Mareykanka iyo bulshada waxa ay ku qabteen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Mu'tamirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka jumciyadda ayana culimaudiin, arday, waalidiin iyo marti sharaf kale. Kulankan ayaa waxaa lagu soo bandhigay duruus diini ah waxaana la wacyigeliyay dhalinyarada iyo waalidka. Qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa. Ayana Islamic Association of North America. This event was organized by and put together by over 15 centers and who sponsored this event with financial, with volunteers, and with energy and everything that they could get and announcements. And alhamdulillah, many of them are here today with me. We have a lot of ulama and scholars with us here today. So inshallah in this brief we're going to open this inshallah. sidoo mu'tamaraadka hore ahaan jireen qayb intaba English iyo Soomaali Carabi intaba ku bixi jireen. Marka inshallah ta'ala laga soo qayb galo hala yimaado hadii aad maaratay ka warqabin inshallah ta'ala ka soo qayb gal hadii Ilaahay yiraahdo oo ka faa'iideysan inshallah ta'ala. mu'tamaraadku waa soo bilowdeen hadii Ilaahay yiraahdo oo soo celin doona inshallah ta'ala. Maraakisteena iyo masaajideena dadku dhan waa isu imaan doona hadii Ilaahay yiraahdo. is araga kaliya wax weyn ah inay is arkaan dadka oo qofkii walaalka waqtiga kuugu dambeysay ama walaasha inaad la kulanto meesha ku aragto wax weyn ay ku tahay culimada inaad la kulanto wax weyn ay ku tahay inaad maartay inshallah ta'ala waa joognaa wixii loo baahdo xitaa su'aalo iyo wixii dan waad u baahantiin waa joognaa inshallah ta'ala culimada joogan waa way imaan kartaan hadii Ilaahay yiraahdo iyo wixii talaaba walaalayaal waxaan aad aniguna ugu faraxsanahay una soo dhaweynayaa soo noqoshada mu'tamarka iyo isu imaatinkii ururta islaam ahaan inaan soo nimaadno iyadoo xilli la kala maqnaa rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu leeyahay iimaanku qofka uu ku dhax duugooba uu ku dhax qalalaa ee cusboonaysiiya iimaankiina marka meesha iimaanka lagu cusboonaysiiyo waa goobaha khayrka oo masaajidu kow ay ka yihiin oo mu'tamaraadkan ay ka yihiin waxaa la sheegay inuu yahay iimaanku mid ziyaada manhajkeena wanaagsan ee ahlu sunna wal jamaaca iimaanku wuu ziyaada wuxuu ku ziyaadaa taacada wuxuu ku ziyaadaa waxa fiican wuxuu ku nusqaamaa macaasida iyo xumaantana wuu ku nusqaamayaa haddaba insha Allah ta'ala meeshan waa meeshii aan ku cusboonaysiin lahayn waa mawsim iyo isu imaatin dadka muslimiinta isugu yimaadaan soo noqodka ayaana hay'adda islaamiga ah oo masaajid iyo muassasaad iyo maraakiis fara badan North America ka asaastay isku keentay si uu amalka islaamigu u kaco waanu mahadnaqaynaa hay'adda iyo madaxdeeda khaasatan akhi Sheikh Yusuf iyo fariiqa la shaqeeya dhamaantoodba waxa kale oo muhiim ah walaalayaal inaan ogaano laba arimood waxa weeye waxa gadaal iga jooga waa culimo waaweyn culimaduna waa warasatul anbiya anbiyada ay dhaxleen alayhim salatu wasalaam waxay sidaan cilmul wiraatha an-nabawiyya cilmiga laga dhaxlay nabiga cilmigii lagu jadiidinayay iimaanka lagu cusboonaysiinayay cilmigii lagu dhisayay fikirka cilmigii qalbiga lagu dhisayay cilmigii ruuxda lagu kobcinayay cilmigii suluuga iyo dhaqanka lagu saxayay iyo sidaan waxayna ka dhaxleen culimo ka horeysay caalim buu ka soo qaaday ilaa uu nabigeena gaadhay sallallahu alayhi wasallam marka waxaan u baahanahay inaan cilmiga weelayno ka baranno fahanno